magaalada Buuhoodana waxaa laga dareemayaa saansaan colaadeed oo hor leh kadib markii ciidamada maamulka Somaliland ay habeennimadii xalay soo gaareen deegaanka Cigaag sidoo kalena degeen meel u dhaxaysa Hurufadhi iyo magaalada Cigaag waxaana xaaladda ka soo cusboonaatay deegaanka ka hadlay saraakiisha difaaca gobolka Cayn waana kan ugu horreeyay Korneyl Cabdifataax Kiistiid oo ka hadlaya arrimahaasi dhaqdhaqaaqyada ciidan waxa keenay waa loo geeyay waxa weeyaan waa ciidanka ku soo duulay deegaanada dhulbaante بدنا عن مكان دخلسني نبتقليدنا وقالي waxaan bulshadayada kula talnay oo ku wacyi gelin jirtay oo ka shaqeyn jirtay nabadgelyada maanta dadka aan jaarkan iyaga lumiyay waxaan leeyahay waajibkayga marka qaadanayna u baaqaya Somaliland haddaanay waxyaabaha ay wadaan si degdeg uga noqon talaabo sharci ah dalka Somaliland waa inay kala baxaan ilaa iyo laamiga ilaa goobta ay joogaan dibna ugu qaadan maayo gobolka Cayn waxaan leeyahay war midnimada wax iska celin jirteen waxaa leeyahay midnimadii horta aan lumin wada jir bad wax iska celin jirteen wada jirkii aan lumin aynu meel uga soo wada jeesano waxaan leeyahay gobolka Cayn guul waxaan leeyahay gobolka Cayn guul waana ka guuleysan doonaa insha Allah taala dhinaca kale ciidamada difaaca gobolka Cayn ayaa ku qulqulaya jiida hore ee deegaanka Hurufadhi waxaana halkaas isku horfadhiya ciidamada difaaca iyo kuwa maamulka Somaliland iyadoo ay suuragal tahay in xabadu afka ka baxdo maadaama laba ciidan halkaas isku horfadhiyaan duulaankan ciidamada taabacsan Somaliland ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay deegaanka Cigaag ay gaadheen 4 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo muddooyinka u dambeeyay ku sugnaa magaalada Buuhoodle Cabdi Casiis آذن جامعة تلفزيون عالمي كالسن Buuhoodle